inkastoo inta badan gobolada dalka laga dareemayo ololaha doorashada qaran ee soo socota ayaa haatan waxaa soo ifbahaya amaro kala duwan oo ku aadan guud ahaan ciidamada Soomaaliyeed. Magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay waxaa maanta ka qabsoomay shirka toddobaadlaha ee looga hadlayay arrimaha ammaanka deegaanada Koonfur Galbeed. waxaana ka soo qaybgalay guud ahaan laamaha ammaanka gaar ahaan taliyaasha qaybta 6aad nabad sugidda booliiska iyo saraakiil ka socotay ciidamada Ingiriiska ee ku sugan magaalada Baydhabo. waxaana shirkan shirgudoominayay wasiirka wasaaradda amniga dawladda Koonfur Galbeed Isaaq Al-Subug. waxaana shirka diiradda loogu saarayay arrimo la xiriira doorashada dalka, waajibaad ka saaran ciidamada Soomaaliyeed iyo doorka ay ku leeyihiin sugitaanka amniga. wareegta laga soo saaray shirka waxaa ku xusnaa shuruudo badan oo arrimaha la xiriira doorashada ay ka mid yihiin in ciidamada aanan ku dhex milmin arrimaha doorashada dalka iyo in ciidamada ay tagaan aaga dagaalka iyo goobaha shaqada. waxaana saxaafadda la hadlay taliyaha laanta ilaalinta anshuuraadka dawladda Koonfur Galbeed Kabtan Ali Aadan Maxamed. booliiska dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo ay warqadan sida tooska ugu socoto waxaa la farayaa inaan la arki karin sarkaal ama askari u ololeeya musharax ama isagaba qayb ka ah ololahaasi. haddaba si loogu fogaado in booliisku uu ku lug yeesho qalqalgelinta arrimaha doorashooyinka, sababtoo ah booliisku waxaa loogu talagalay sugidda ammaanka guud ahaan dalka, gaar ahaan deegaanada Koonfur Galbeed oo keliya loomana dul qaadan doono sarkaal ama askari ku kaca arrimaha sare ku xusan. waxaa laga qaadi doonaa ciddii ku kacda falkaasi ee ololeynta iyo shoobaraha ah, waxaa laga qaadi doonaa tallaabo sharciga waafaqsan. sarkaalkii ama askarigii u ololeeya ama isaga qayb ka ah, isagoo ka mid ah ciidanka booliiska dawlad goboleedka Koonfur Galbeed, waxaa laga qaadi doonaa tallaabo sharciga waafaqsan. sidaas darteed mar labaad waxaa idinku adkaynaya inaad amarkan sida uu yahay u fulisaan. ciddii ka dhiga adeegtana waxaa laga qaadi doonaa tallaabo sharciga waafaqsan. marka laga soo tago Kabtan Ali Aadan waxaa sidoo kale goobta ka hadlay oo digniin culus u diray ciidamada xoogga dalka kusimaha abaanduulaha qaybta 6aad gaashaanle sare Cabdi Maxamed Dibel. maadaama lagu jiro xilli doorasho oo carcartiisa leh, cadawguna uu maxaan ku raahdaay uu leeyahay carcartiisa wato, waxaa la faraya waxa ka soo baxay sidii loo adkayn lahaa amniga. ciidamada ka tirsan qaybta 6aad xoogga dalka Soomaaliyeed waxaa la farayaa dhammaan inay tagaan ku sugnaadaan rugaha ay ka tirsan nin walba fadhigiisa difaacyada in la buuxiyo. qof lagu arki karo magaalada waa askari ka shaqeeyo inta la qayb wixii kala dhammaantood waa inay ka qayb galaan, ay tagaan rugahoodii, sarkaal wala askari. doorashada dhacaysa sarkaal wala askari shakhsi lagu arki karo oo gacan siin karo oo ololeyn karo ma jiro. askarigii lagu arko ama sarkaalkii lagu arko asagoo cid gacan saar lale ama cid u ololeynaya ama reer hebel leh ama waxaas leh, waxaa la waafajinayaa tallaabo sharciga waafaqsan oo asaga qusaysa. waxa weeye marka mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad waxaan sheegnaa ciidamada inay tagaan askari walba iyo sarkaal walba fadhigiisa meesha uu ka tirsan yahay. askarigii ka tirsan xeryaha banaanka oo lagu qabta magaalada dhexdeeda waxaa laga qaaday tallaabo sharci. gaashaanle sare Cabdi Ibraahim Shaamow, taliyaha ciidamada booliiska dawladda Koonfur Galbeed oo ugu dambeyntii shirka ka hadlay ayaa muujiyay in askari kasta ay habboon tahay inuu qaato amarada ka soo baxa dawladda isla markaana u hoggaansamo awaamirta loo soo jeediyay. oo ka faa'iideysanaya waxaan fariin u dirayaa ama aan farayaa saraakiisha xukunto ciidanka shaqada waa la siga hooseeya. waxaa ka mamnuuc ah askariga inuu galo howlo siyaasadeed, inuu qof taageero qofna uu riixo. annaga shaqadaas mana u soo tababaran, shaqadeena naloo egmadayna ma aha, wax liska yeelayna ma aha. askarigii ama sarkaalkii ku kaco in mahay aheeday siyaasad ama wax taageero waxna diido, annaga sarkaalkaas tallaabo aan lisku soo noqonaynin ayaan ka qaadaynaa. ama askariga oo ku kaco waa arkayay baryahan eraboorka dad lagu soo dejiyo oo habada loo rido oo la amaano
oo la taageero hala doorto la dhahay shaqo kuma lihiin arrintaas bulshada shaqo ku leh iday taageeraysa iyo iday diidaysa anaga shaqno wixii siyaasad ah wasaaradda amniga ayaa noo qaabashan wax allaala wixii la soo go'aamay ayaan fulinaynaa anaga kaliya waxa noo furan inaan weydiino war meeshaas la go'aamiyay meeshaas wax ka dhacayaan meeshaas amnigeeda saan macna wax ka yihiin waan dhex karnaa oo halkaas haday qalad tahay hadii ciidan tahay haddaas halkaas hogaa waxbaan ugu baahanahay waa dhex karnaa laakiin hebel hala doorto hebel hala diido annaga shaqadeena ma maslax raage warbaahinta ciidamada qalabka sida Baydhabo